السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدل مالي ونحسن صدق على كلنتي ونحسن كل سؤال برنامج كنا ورجس ربو عن صنع وانا سمعني عن قضبة سبورتس ودن ببابرسك يوروب ويب وحان معلومات عادية نصارن السيتي برشلونة كل ما ما أنت العيار هايو بل سمال إنتان دقا نوع عوانك وين وكبدا عكت جر ترنينج سمعنا وحتى الهلال ayaa markii ugu dambeyntii laga badiyay 18 bilood kadib waa guul darada ugu horeysay ku dhacdo kooxda Al-Hilal 3-2 waxa kaga bisnaadiga Al-Khalij Al-Hilal waxa la tusay markii in ay xaalad caadi ah gali karaan laga badin karo waliba ciyaar ee laba gool ebergeeyeen oo goolka 2 mitir fi shabaqa gaarsiiya inta kan baa lagu sameeyay Al-Khalij oo kala baxday 3-2 looga badiyay wax waliya dhacday waa mid kamid ciyaaraha kubadda cagta ugu la yaabka badan la hadal hayo trending ka sameynaysa markii Al-Hilal oo xaaladda normal ku soo labatay markii cagaha dhulka loo dhigay 3-2 looga badiyay Ronaldo markaa ciilka ay mali kartiin sababtoo jimcaadii haduu odaga بدين لها أصلا القادسية كبدسة وجانك سدح دبعوضة لوجه هن هذا ستيل لحد دبعوضة وجانك لوجه هاي لكن ترتنكي هوريال كسعودي بروليج ما أصلا دمانين والنصر ولي ويتاجين لكن أرين كلا حساب بدنا حتى الاتحاد كنا نجعنت كويستان هل دبع وجانك لوجه هاي هدي يقولستان هوريال إيجا ولا وريه كان هو جامير عصوة الصبيح دونا مركز سعودي بروليج أرين كلا ياب اللي كده على برنامج كانوا كوب اللبناننا الهلال اللي قبلنا عيد ليس سمنا لكن كوحد القادسية كريت كمدام لينارد يوس يا متروفيتش وجانك ودي بين كوحدة الهلال سلب حقين لبقول إبر لكن كوحدة وحصل لابتين الخليج أو 6 جول وبدرن حتى رجوري عنين هاف كهرة نيكل ومجعب السليمة لوجر شبكة جاري مارتينيز نو سوق جود قدي سدت نشانات سادرته مركمت كم إذا كان باقي وحساب الناس السعودي برولي كدعي يلا يابك وين ما دام وقدام بينتي سدي تنبلت كدي بلقى بدي كوحدة الهلال أو عيار كستهوريال كعيارا ويقول السنة يعني كلن كان عدي بدين لاين سجال عوده وجانك قبل لاين كوحدة النصر نتوسع وقوسا لاين مركم وريال لذا قاركود حيسها مركم وكلا يشان هدي الهلال اسك بدين هوريال كوابل نعلى صوابته ماني كستو ملسك يقول السنة يا marka cid soconaysa male saadarta waxa leeyahay marka hadii hadda Karim Basimi kooxis al-Ittihad maanta oo xada ay guuleystaan horyaalka ay gacanta ku dhigdaan hogaamintiisa new leaders soo bixidaan hogaamiyaal cusub arinka xisaab badan kooxda al-Ittihadna dabcan waxay ciyaaraan sida diiwaan gashan caawo 8 fiidnimo ee xilliga geeska Afrika al-Fatah wajahan hadii guuleystaan marka hogaanka ayaga la wareegi doonaa daawadayaal hadda horyaalka waxay ka dhigantay al-Hilal 12 kulan ciyaaris 20 dhibcood leeyihiin sidoo kale marka la fiirsho al-Ittihad waxay leeyihiin 17 dhibcood kulan ay gacanta ku haystaan al-Nasr 12 dhibcood leeyihiin al-Shabaab 12 dhibcood leeyihiin al-Qaadisiya ayagana waxay leeyihiin 12 dhibcood leeyihiin sidaas marka Saudi Pro League xiisa ku yeeshaan ku bilaabanayna in ugu dambeyntii al-Hilal laga badiyay 18 bilood kadib waa sanad iyo bar kadib kooxdan laga badiyay markaan Beberiska Ingiriiskan ka bilaabayna Pep Guardiola iyo kooxiisa Man City xaalad wali ku jiraan wada Pep wuxuu dhahay 8 sano meeshan joogay waxaana kale waa idinaado ka dhawaajiyay waa la iska badiyaa laakiin wuxuu dhahay kooxdu waa fariisatay dib aan u baahnaa isku soo aawalno inaca kale wuxuu dhahay waa qayb kamid ah banooniga hadiiba hadda Pep Guardiola uu qirsan yahay guushi iyo guul darada isku mid yihiin waxa waa wax badan oo 10 ayaa Pep hadda uu bartay historically intuu macallin yahay waligiis meesan ku dhicin 5 kulan oo isku xigtay in laga badiyo City-na sida uu iibsadeen nimankan Carabta ee Madnawma aysan ku dhicin 5 kulan oo isku xigtay in laga badiyo 2006 ugu dambeysay xilli Stewart Pearce uu wato 6 kulan oo isku xigtay laga badiyo marka waxa leeyahay wax kasta wasaq haday tageen laakiin odagu wuxuu rabaa inuu soo bilaabo dhanka rekoordan ka hadlayna ma ahane mustawaha Man City markasta ay soo noolaan karaan hadaba Pep Guardiola wuxuu leeyahay toddobaadka dambe haday Liverpool naga badiso it's over wax kasta waa isku dhamaadeen laakiin wuxuu leeyahay before Liverpool intaan la gaarin ka hor waxaan u baahnay xal in uu helno ka dhawaaji counter attack waalida naftana wala qaas sababtoo City xil ciyaareedkan waxa lagu dilay counter attack season kan waxa la waakay ugu nugul yihiin kubad kasto counter attack wax joojinay male number 6 kooxda malahan hadii weer lagu soo qaado halis waa gool ka dhalanays marka Pep pointigaas oo calaamiyay wuxuu dhahay وأنا حلو هالناوي كده واجهكو بدها كونتر أتاج نفتنا ولا قاعدة وأن بروتكشن وسميناه الدفاع إذا ده مركز كل باب وقرصني كوحدي سحارات ده أجشيني جبك كوجران لكن أضاق حالة والد وحولي وان كبيح دونا and we will be back وصول لابن دونا ولا إن عكل وحا وانا ده هيستدب عمر كلا فيريو نيكل ومجع نيكولا جاكسون قف كستو شكي قوي وحولها شكي بحالي معنا مرسك حتى وده كان وحده بنانكي سكون داعي لبي طبعا كنا بريمير ليج يا تدب جول شبكة جالسي جيلسي ستة هات فرق وده وهال دبي وكلية مركو حالي جاكسون وأم قدا riyaankii saxda ee Chelsea in badan caawin kara xitaa numbers waxa la kulamada kooban oo ciyaari ee goolasho shabakha gaarsi xitaa diida darag ma sameeyeen markii la fiirsho waayihiisi darag basan kuma bilaaban inaca kale Bukayo Saka oo digaadi Arsenal iswataan waa soo caafimaadeen xalayaan ka sheekeysanay 3 gool eber waxay ku dhufteen naadiga lagu magacaabo Nottingham Forest hadda City hal dhibic ka sareysa Liverpool 6 dhibcood ka sareysa marka waxa la Manchester City intii hore ku mashquul lahayn gadaashooda eegan sababto ee City waxa soo agdegeen Arsenal iyo Chelsea iyo Brighton hal dhibcood ka sareen
guuleystaan isbuuca dambe haddii City laga badiyo oo kooxaha kale ay guuleystaan waxaaba laga yaabaa inay top 4 ka baxaan wax realistic oo dhici kara waay dhinaca kale waxaa soo baxay macalinkii dhoola cadeynaya Smiling One ama the Smile One haddii special one Jose Mourinho uu jiray waxaa soo baxay Master dhoola cadeeya soo baxay qoslaaye wuxuu leeyahay dhoola cadeynaya haddana wuxuu leeyahay safety-da banaanka waa rathless aan leeyahay aniga manaxi warbaahinta uu qoslaaye wuxuu leeyahay wixii waaqic mahane laakiin shaqadeeda markay noqoto wuxuu leeyahay guys I'm serious wuxuu leeyahay qosolkan wax iska socda mahan ciyaartoydana digniinu si from today marka laga bilaabo maanta wuxuu ka rabaa ninkasta inuu kaalinsa qaato kii bandhigiisa xumaado macalinkan waxaa banaanku iska dhigaa wuxuu leeyahay qosolkan yoos idin sin qosolkan waxaa ku hoos dugan uu leeyahay aniga shaqadeeda waa aqaan uu leeyahay marka Fabregas ciwaanahaas ugu muhiimsan aan soo qaadano qodobada gossip kadib waxaan sii eegaynaa sheekooyin kulamada maanta actionka Premier League la ciyaaraan oo aan preview ka sameyn doono qodobka ugu weyn ee gossip gudaha Ingiriiska markii aan fiirno daawadayaal wuxuu noqonayaa dhanka dabcan kooxda kubadda cagta Manchester United iyo soo kale Man City laba Manchester waxay isku haystaan ciyaaraanka lagu magacaabo Victor Gyökeres oo dhankaasi dabcan Swedish u dhashay oo Sporting Lisbon ka tirsan waliba si gaar ah shabakada The Mirror waxay leedahay macalinkiisa Robin Amorim wuxuu rabaa ciyaaraankan 26 jirka inuu soo qaatay Gyökeres si uu weerar kaga dhigto halka City xitaa xidigan ee baadi goob ugu jirto waxaa leeyahay marka laba Manchester isku haystaan xidiganteeda wanaagsan dhinaca kale Manchester United waxay la xiriireen kooxda Real Madrid waxayna weydiisteen qaabkii looga iibin lahaa Eduardo Camavinga 22 jir ah inkastoo Camavinga uu rabo inuu sii joogo dhankaasi gudaha Spain sida Bernabeu Digital ee daabaceyso sidoo kale wararka Man United waxaa qayb ka ah macalinka lagu magacaabo Robin Amorim wuxuu doonay in loo keeno Nuno Mendes oo 22 jir ah oo hore Lisbon wada joogi jiray difaaca garabka bidix ka ciyaaray hadda Paris ka tirsan sida Daily Mail ee daabaceyso balse maamulka Manchester United short list ee macalinkan u sameeyay waxay dhaheen saddex ciyaartoy oo garbaha difaaca ka ciyaaran ku hena gaar ahaan garabka bidix ee dhanka difaaca mid dooro waxay kaliin Alphonso Davies oo Bayern u ciyaaro Milos Kerkez oo u ciyaaro kooxda Bournemouth iyo sidoo kale Alvaro Fernandes Garekas oo Manchester United xilli ciyaareedkii dhawaa kooxda Benfica ka iibiyeen haddana waa cadra fiican dhiga saddexdaas mid doora le Amorim sida Express ee daabaceyso dhinaca kale Aston Villa kusoo biirtay loolanka loogu jiro ciyaaraanka lagu magacaabo Joshua Zirkzee oo Manchester United Janay ama ku fasaxayso Villa waxay rabaan xidigan ay ka faa'iideystaan sida code offside ee daabaceyso saaxiibada Arsenal waxay qalqaalo xoogan ugu jiraan Hollandeeska khadka dhexe kaga ciyaara AC Milan lagu magacaabo Tini Ronaldo waxayna u ballan qaaday mushaar waaliye 26 jirkan hadii uu dooranayo garoonka Emirates xagaaga nagu soo foole sida shabakada Fijidis ee daabaceyso dhinaca kale Manchester City oo khadka dhexe dhibaato ka qabaan waxay markaan diyaar u yihiin kooxda Crystal Palace in wada xaajood la furaan si ay kaga soo qaataan Adam Wharton oo 20 jir sida Team Talk ee daabaceyso dhinaca kale kooxda Everton waxay doonaysaa gacantan ku soo dhigan Brazilian garbaha ka duul lagu magacaabo Luis Enrique oo 23 jir kaasoo Botafogo ka tirsan sida Football Insider ee daabaceyso qodobada ka kooban waxaa qayb ka Spurs Liverpool labada waxay ku soo biireen loolanka loogu jiro Dutchka fullback ama difaaca Hollandeeska garbaha ka duul lagu magacaabo Devin Rennes oo 22 jir una ciyaara kooxda Ajax horena Barcelona xidigan u rabtay sida Dario Sport ee daabaceyso dhinaca kale waxaa la Chelsea taageer weyn waxay u tahay inay gacanta ku soo dhigaan ama ay xiisayaan ninka lagu magacaabo Evan Ferguson oo 20 jir oo weerar ka ciyaara Jamhuuriyadda Ireland iyo Brighton laakiin Blues ma bixin doonto lacagaha Brighton xidigan ku doonaysa ee gaaray 100 milyan oo bond sida Team Talk ee daabaceyso saaxiibayaal kooxda Man City waxay diyaar u yihiin ciyaaraankooda Liam Delap oo 22 jir waqti fiican ku qaadan Ipswich Town inay dib u soo ceshtaan waxayna ku soo ceshan karaan 20 milyan oo bond wiilkan weerar ka ciyaaro sababta soo sameynaysa xitaa City waxay cabsi ka qabaan Delap inuu gacanta u galo kooxda Chelsea sida Express ee daabaceyso dhinaca kalena tababarihii ku meel gaarka xulka Ingiriiska shaqada iska wareejiyay Lee Carsley wuxuu sheegay inuusan rabin qabashada heer naadi ama koox inuu qabto wuxuu sugan doonaa Thomas Tuchel xulka Ingiriiska markuu iska wareejiyo wixii ka dambeeyay 2026 siga dasan ee daabaceyso ugu dambeyntiina Olaf Melberg difaacii hore xulka Sweden iyo Aston Villa ayaa la sheegay haatan inuu u sharaxay qabashada jagada kooxda lagu magacaabo ST Low City oo dhankaasi Major Soccer League ciyaarto sida Berbers ku xadan markaana soo qaadana maanta laba kulan oo xiiso badan Premier League jiraan oo natiijooyin u baahan yihiin kooxaha Liverpool iyo Man United ciyaaraan kulamo kala duwan haddaan ku hormarno kulanka Southampton Liverpool dhexmarayo ciyaartan xiisaha badan Arne Slot kooxdiisu waxay haystaan fursad qaali haddii ay guuleystaan hoggaanka ay ku qaban karaan qadar 8 dhibcood maadaama Manchester City laga badiyay kulankan wuxuu bilaaban doonaa daawadayaal sidii diiwaan gashan 5 galabnimo xilliga Geeska Afrika ayuu bilaaban akhbaraadka dhanka Liverpool Trent Alexander-Arnold diyaar ma ahan Alisson soo kala diyaar ma ahan Jota asigana diyaar ma ahan iyo silamida ninka lagu magacaabo Federico Valverde inkastoo Harvey Elliott tababar uu bilaabay asigana kulankan ma ciyaari kara dhanka Southampton ee goolahooda Ramsdale iyo waxa ka maqan ciyaaraanka lagu magacaabo Jan Bednaker haddii aan firno shaxda macquulka ee dhanka Slot iyo kooxiisa soo gali karaan waxa goosh u qaban doona si u badan tahay kala heer Van Dijk iyo Konaté Bradley waxaa iskaashan doona Simiskis halka McAllister iyo Gravenberch noqon doona qadka dhexe Salah Jones Diaz iyo waxa ka horeyn doona Nunes ciyaartan shabakadu isku dhexe ku saadaalisay kooxda Liverpool away inay ku badin doonto 3 gool ibar
waxyaabaha ka kooban kulankan loo daawan doono waxaa qayb ka noqonaya soo qaadan karnaa markii aan eegno daawadayaal Southampton iyo Liverpool maxaa ka dhaxeeya sida BBC-da ku daawacan xogta ugu muhiimsan ee simbalkan ka soo qaadan doona waxaa kamid ah Southampton 14 kulan ugu dambeysay Premier League Liverpool la ciyaareen hal kulan kaliya guuleysteen waana Janaayo 2021 ciyaar Anfield lagu ciyaaray hal gool ibar ku badiyeen inta kale 10 kulan oo kamid ah laga badiyay 3 kulan barbardhac galeen markii isugu dambeysay labadan kooxood iska hor imaadeen waxay ahayd horyaalkii la soo gabagabeynay xilli ciyaareedkii 2022-2023 oo garoonka St Mary Stadium lagu ciyaaray 4 kulankan ku soo ilaaday waa ciyaar waxaan u maleynayaa Henderson iyo Fabinho iyo Firmino iyo rag badan lagu soo gotay ciyaartooda ugu dambeysay Liverpool u ciyaareen dhinaca kale waxaa Liverpool hadii ay kulankan ka badiyaan Southampton waxay u noqon doontaa guushii kontonaad ee horyaalka ay ka heli doonaan sida diiwaan gashan waxay la mid noqon doonaan Manchester United iyo Spurs oo dabcan konton guul ka heleen kooxda Saints-ka dhinaca kale daawadayaal tababaraha kooxdan hogaamiye Martin asigana waxaa la xilligii ciyaaryahan ahay kooxda Liverpool 8 kulan oo Premier League uu wajahay wax guul uu ka helay ma jirto 6 kulan laga badiyay 2 kulan barbardhac uu la galay xilligaas Norwich uu ciyaari jiray Arne Slot wuxuu barbareen kana macallimiinta ka mid yihiin Carlo Ancelotti iyo Jose Dinke oo waxaa la daawadayaal kulamada ugu yar ku gaareen 10 guul Premier League kuwaas oo 12 kooda kulan ugu horeysay 10 kulan kamid guuleysteen dhinaca kale tan waxaa la markii la fiiriyo taariikh ahaan Premier League laba kooxood waxay u suura gashay 12 kulan ugu horeysay EPL inay 10 jeer oo kamid guuleystaan laakiin labada koox horyaalka ma aysan qaadin waa Newcastle xilli ciyaareedkii 95-96 iyo Arsenal sidaas sameysay xilli ciyaareedkii 2022-2023 dhinaca kale waxaa la kooxda Liverpool 4 kulan ugu dambeysay ay la ciyaareen koox Championship-ka play-off-ka soo qaaday la ciyaareen oo away aadeen dhibcaha iyo luminaya markay safar u aadaan Mohamed Salah 4 kulan oo isku xigto Premier League oo shabaqa gaaray sidaas uu sameeyay waxa ugu dambeysay August ilaa October 2021 oo 7 kulan isku xigta uu shabaqa gaaray dhinaca kale Salah dhamaan tartamada kala duwan waxa la Europe Top 5 League saa ugu horeeyay xilli ciyaareedkan in 10 gool shabaqa gaarsiiyo 10 caawin sameeyo asaa darajadan bilaabay xilli ciyaareedkan dhinaca kale Masaarigan waxa la 14 gool xilli ciyaareedkan Premier League kullu yeeshay sida uu diiwaan gashan 8 gool shabaqa gaarsiiyo iyo 6 caawin sameeyo Cody Gakpo asigana kulankan wuxuu noqon doonaa midkiisa 200 oo kooxda Liverpool u safan doono kulanka u dhaxeeya markii aan fiirino Ipswich Town iyo Manchester United wuxuu qaas u yahay macallin Amram oo shaqadiisa kooxda u bilaaban doonto ciyaartan 7 fiidnimo xilliga Geeska Afrika bilaabanayso ciwaanku waa Mr Qosley iyo shaxdu ku soo gali kara iyo qaabku u ciyaari doono ayadoo United wali daroofa kala duwan ay qabaan ciyaartooy ay ka maqan laakiin macallinkan wuxuu sheegay shaxda ugu macquulsan uu heli karo inuu adeegsan doono dhanka Manchester United waxa la daawaday hadda dhibaatooyin gaar ah ma jiraan Lino Yora laga yaabaa kulanka macallinka inuu ciyaarsiyo Lisandro Martinez soo dhaawac qaramada ka soo laabtay jawaab xilli dambe mar doona haduu kulankan ciyaari karo shaxda macquulka ee United ku soo gali karto waxaan ka soo xignaa shabakadu iskoor waa shax macquul ee dhab ma ahan goosha United waxa uu qaban doona Onana difaaciid waxay noqon doona Delict Shaw iyo Evans oo u badan tahay labada garboodna Mazrua iyo Garnacho halka uu gaardi Manao iskaashan doonaan Fernandes Diallo iyo Rashford noqon doonaan kulankan shabakadu iskoor waxay ku saadaalisay in Manchester United away laba gool hal ay ku badin doonto waa prediction saadaal idinkan maxaa ku saadana commentiyadiina ka dhiibtay saaxiibayaal waxa la labadan kooxood markii ugu dambeysay Ipswich Town ee Manchester United ee gool ka heleen waxa ugu dambeysay 3-2 ku badiyeen ciyaar la ciyaaray September 1994 waa kulankii ugu horeeyay Scholes Manchester United markaas saftay shabaqan ugu gaar laak ciyaartaas Ipswich 3-2 ku badiyeen dhinaca kale Manchester United waxa la 5 kulan ugu dambeysay la ciyaareen horyaalka heer koowaad kooxda Ipswich Town 4 kulan kamid Manchester United ayaa guuleystay markii isugu dambeysay waxay ahayd 27 Abriil 2002 Manchester United hal gool ever ku badiyeen Ruud van Nistelrooy gool kula shabaq ku hubsaday dhinaca kale tan waxa la Manchester United markii la fiirsho back to back win oo ka helayso kooxda Ipswich Town awayna waxa ugu dambeysay 1962 iyo 63 dhinaca kale tan Manchester United waxa la 13 kulan ugu dambeysay dhammaan tartamada kala duwan ciyaareen kooxda 2 kulan guuleysteen 6 kulan barbardhac galeen iyo 5 kulan laga badiyay away markii la dhaana kulamadii ugu dambeeyay guuleysteen waa Brighton iyo Southampton ay ka badiyeen dhinaca kale tan Manchester United waxa la kooxaha promoterka ee 19 kulan ugu dambeysay oo away aadeen wax guul daraam aysan kala kulmin 17 kulan kamid ka badsheen markii ugu dambeysay laga badiyay November 2021 ciyaar ay guul dara kala kulmeen Watford oo 4 kaga badisay marka kulankan waxay u badantay United inay gool ku daafuran doonto inkastoo waxa la 6 macallin ugu dambeysay Manchester United sida rasmiga kooxda lagu dhiibay 3 macallin oo kamid kulankooda kood waa laga badiyay waxaana macallimiintaas kamid ah Sir Alex Ferguson Luis van Gaal iyo Erik ten Hag markaan gudaha Spain aadayna Barcelona xalay waxa galay waxaan caadi ahayn sababta guul ay siiyeen 2-2 aheed ka saada markuu casaan ka qaata wax kasta isbedeleen 10 daqiiqo waaliya soo martay ilaa hadda waxa la isweydiinaa sida dhibcaha ay kulmay marka jaraa'idada Spanish ku xileen
على وحي برشلونة هلا ayaa la yaaban yahay wax aan la filayna kooxda ku dhacdo guulay siiyeen jaraa'idka markii aan firino kala saaxiibayaal sport iyo kale waxay leeyihiin xal waxay wad ms maxaa wax isku qasmayaan xal wixii isku qasmay la isweydiiyo casaankii ka saada ciyaarta qase Rafinha Lewandowski shaqadooda qabseen laakiin Barcelona waxa waa 2 daqiiqo gudaheed ciyaartii barbardhac 2-2 looga dhigay markii dambana ayaga fakadeen hadda waxay ka dhigantahay Barcelona markii 3 kulan uu ka maqan Lamine Yamal 3 kulan horyaalka ma aysan badin 2 kulan oo laga badiyay iyo kulan barbardhac ay galeen sidoo kale Mundo Deportivo markii aan firino ayagana daawadaal waxay Lewandowski inkastoo oo 15 gool shabaq uu gaarsiiyay hadda top 5 league uu goolasho badan Rafinha asagana 8 gool horyaalka uu shabaq gaarsiiyay haddana ciyaartu waxay ku soo ilaatay sinniga jab ku dhahan Hans Flick wuxuu leeyahay waxa la isweydiin doonaa sida wax ku dhaceen inkastoo kasaada uusan eedin haddana waxa la qaladaadka kooxda ka dhacay iyo sida labada gool u difaacan waayeen ayuu macalinka aad kaga xuniyay haddana Real Janisian hadda Real guuleystaan hogaanka 4 dhibcood kaliya looga heynaa sida xaqiiqada haddii aan firino shabakada caanka Marca waxay coverka siiyeen Mbappe oo leen culeys ku saaran culeys iska daji waliba tuumad barashara Kylian Mbappe saaran sidoo kale tan shabakada caanka AS-na ayagana waxay coverka siiyeen Valencia oo xala 4-2 ku badiyaan laakiin kulan kor intuusan bilaabin magaalada Valencia waxay magaalo qiiraysan waa laga warqabaa 2 toddobaad ka hor musiibooyinkii Valencia ka dhacay fatahaadihii roobabkii dadkii ku dhinteen tirada badnaa xala marka midnimo guud ah Valencia ka jirtay ciyaartooydana kadib bandhigan caadi ah sameeyeen guul wacan way gaareen marka sheekooyinka Spain waxay tahay in la isweydiinayo xala Barca maxaa ka qaldamay sida uu sibxadeen jahwareerka ee galeen iyo fursadda hadda hortaala naadiga caanka ee dabcan ka faa'iideysan karta Real Madrid ayaa la isweydiinaa dhankaas Talyaaniga markii la aado kulankii Milan iyo Juventus waa lagu hurday wali waxay u egtaaba ciyaar barbardhac eber lagu heshiiyay Mehmed ama kaftanka laga sameeyay xitaa waxa qaybka Tyson waxa la soo qaatay ninkii feerka wada ciyaar wiilkii dhalinyarada YouTuber-ka feerkaas waa feer fixer si lacagta loo kala qaatay ciyaarta xalan waxa la ciyaar waxay u ekeedbo in labada kooxood eber ku heshiiyeen bandhig xumada liidatay sidoo kale waxa laga hadlaa Talyaaniga oo final u soo baxeen Davis Cup kadib markii ay guuleysteen hadda Gazzetta kale waxay leeyihiin hal tilaabo kaliya ka xigta Sinner inuu taariikh sameeyo haddii caawa uu guul waxa la kulanka xigan uu guuleys Davis Cup wiilkan Italy u qaadi doonaa sidoo kale waxay ka hadleen Gazzetta del Sport kulankii caajiska badnaa laakiin macallin Fonseca wuxuu leeyahay barbardhac waa natiijo cadaalad ku dhahan inkastoo hadda Milan 9 dhibcood horyaalka looga hogaaminayo xaaladda ay ku xuntahay sidoo kale Gazzetta waxay ka hadleen Inter iskama celin kale ka dhawaajeen ayadoo Thuram 2 jeer u shabaqa gaaray culayska waxay ku gadiyeen kooxda Napoli oo Conte wato caawo wajihi doona naadiga Roma kulankan culays badan saaran naadiga Napoli International goal eber ayaba ku badiyeen saaka warqabno Gazzetta del Sport waxay dhahan kulankii weynaa ee la wada sugaa si qaab darro badan ku soo ilaaday xal natiijo fiican ma ahayn eber labada kooxood waa isla gooyeen Juventus 25 dhibcood inta AC Milan waaba laga tagay sida muuqata Juve waxa la barbadhacan xitaa ayaga qasaare ku tahay markii loo fiiriyo in loolan horyaalka ay qayb ka ahayn sidoo kale Gazzetta waxay ka hadleen Antonio Conte oo magaalada Roma dabcan wajihi doona xilli Lukaku waxa la kooxdiisa ka hortagay Ranieri asagana wuxuu u baahan yahay gool inuu ku daafurto si lamid haddii aan fiirino Tutti Sportivo ayagana waxay dhaheen ciyaartii gool la'aanta ahayd oo inkastoo Moto amaana xidigiisa Magni oo kale iyo Fagioli ay u ciyaareen haddana waxa la leeyahay darowga Neil cid ku farxada malaha habeen waxay ahayd dabcan natiijo aan lagu reeqan la arkay hal ciwaan soo qaatay Tutti Sportivo Atlanta high flying ayagana xala waa badiyeen Atlanta Inter Milan 28 dhibcood leeyihiin haddana horyaalka Atlanta hogaaminayso waxa la sugan doonaa marka Napoli jawaab nooc ay bixin kartaa hadal heynta noqonaysa kulamada Talyaaniga la ciyaaray iyo ciyaaraha kale markii aan Real Madrid oo kale horta Leganes wuxuu kulankooda bilaabanaa 8 iyo barfiidnimo xilliga Geeska Afrika Serie A Talyaaniga kulamada jiraan Napoli iyo Roma kulankooda waa 8 fiidnimo Lazio iyo Bologna kulankooda waa 10:45 habeenimo xilliga Geeska Afrika ciyaarahaas ugu xiiso badan saaxiibayaal jiraan guud ahaan barnaamijkan wargeysada intaas nooga eegaya waa inoo kulan dambe haduu alla idmo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh